مدن قدومية وحان قبا قدقان آدي آد بيسو دادالين قرمدي هوري قابك يقرني قابك يسو شقين آد بي معناه دادالين بلس مهمة وحا واية بني آدم كوحا وقال سنة رشوة سيد العدي أنا وحان لهاجرني دقن بيرلي أيان هاجرني فرلي دان وحاجر الدولين نوعنا أو بابية وزارة هوري بيراه جوغي جفتي قاب أي ولد قالمي جفتي لكن قاب كان هذا اسكفورا آد بوديبو كيني جانتا ربنا كدعدي يوم بوحو ربوس كيسنيا ما أنت هذا سوق قدرات كأديكتي waxaad arkaysaa liintii oo kor ka fiican gudaheediina badala barbaroonigii saas oo kale saladkii iyo wixii kale oo la cunaya ayagoo dhan daroolay leeyihiin gudahooda lafta hoose haddaad sii furfurtid oo sii dhaqdid xataa waxyaabahadan arki jirin aad ku arkaysaa waxyaabahaas oo dhan waxaa keenay laabla'aanta iyo wax lagu baarayo aan jirin ee hay'adda intaas qaabilsan horta hay'addan dhisideeda muhiimadeeda taas ayay leedahay aad baan u soo dhaweynayaa in hay'addan la dedejiyo balse laga fikiro wixii hadda Lubnaan ka dhacay waa aragteen qaraxyadii waaweynaa kiimikada la xiriiriyay dhibaatooyin badan ay leeyihiin kaliya anaga waxaan rabnaa dhaqanaan lahaan jirnay beeraha markii la goynayo waa la dhex mari jiray beeraha macnaha sabuulkii abuur noqonayo iyo kaan noqonaynin aqoon la garanayo jirtay oo lagu kala xulanayo sabuuladaasaa la ururin jiray sibraar ama maqaar ama bahal fiicana lagu toli jiray ilaa abuurka laga gaaro meelaa la cuskin jiray oo waxaa laga ilaalin jiray xasharaad kaliya anaga waxaan rabnaa waxyaabahan dullinka firileyda cuno lagula dagaalamo oo aad looga fiirsaday nolosha bani aadamkan aan wax u dhimaynin laakiin waxyaabahan bacrimintii iyo kiimikadan iyo inta aan cagaheena si fiican uga istaagayno oo aqoon-yahanadeena iyo nidaamkeena aan dib isaga dhisayno waxaan rabnaa kaliya inaan abuurkeena iyo waxeena aan isku gabagabaysano wixii aqoon u baahan abuur kale iyo qaabkeeda iyo cilmigeedana farsamadeeda iyo waqtigeeda hay'addan qaabkaas inay culayska saarto ayaan rabay haddaan dib ugu noqdo qormadii hore guddiga aaday u soo dadaayeen waxyaabo badan ay ka bedeleen waxaan ku darsan lahaa waxyaabo aan isleeyahay waa ku habbooneed inay raaciyaan cutubka labaad qodobka shanaad golaha maamulka gundanka kooramka saaris siday ay u sheegeen 15 ay ka dhigeen ani 11kii keliya waxaan raacin lahaa laba wasaaradood wasaaradda ganacsiga oo lagama maarmaan ah iyo wasaaradda biyaha oo wadwadaag la ah beeraha in labada xubnood lagu daro oo 13 laga dhigo isla faqradda afraad qodobkan shanaad waxay ku soo dareen rusqo qodobka 26aad ee rusqada lagaga hadlaayo qodobadana qodobka 26aad ayuu ku jiraa marka faqraddan afraad in loo raro qodobkaas 26aad ayaan xusuusin lahaa guddiga waa qormadii hore qodobka 13aad awoodaha guddoomiye ku-xigeenka in lagu daro inta guddoomiyaha laga dooranayo waxaa la yidhi guddoomiyihii iyuu haynayaa hadduu maqan yahay iyo hadduu jiran yahay guddoomiye ku-xigeenka haynayaa la yidhi laakiin sharci sidiisaba waa inuu buuxaa in lagu daro inta guddoomiyaha laga dooranayo qodobka 14aad xafiisyada saaris xafiisyada waa in lagu qiimeeyaa deegaanada ku habboon beeraha wax soo saarka leh gobol degmo iyo tuulo
aan la dhihin maamul goboleedkiiba xafiis hoos imaada xafiiska saaris ee caasimadda in la dhiso inaan la dhihin ee lagu xusho xafiiska beeraha deegaanada beeraha ku habboon hataa hadday tuulo tahay xafiiskaas meesha in laga furo waayo wax soo saarkeedii iyo muuqaalkeedii wax ka qabadkeedii ayaa jiro in arrintaas loo qiimeeyo ayaan rabaani aan iska dhihin maamul goboleed kastaba hal xafiis keliya iska dhihin ee lagu qiimeeyo wax soo saarka iyo deegaanka qodobka 2aad wasaaradda beeraha kaga aadan saaris faqradda 3aad marka ay gudanayso saaris waajibaadkeeda waa inay fulisaa amarada ee laga saaro tixgelisa waxaa yidhi nin hadday ka dhawaajiyay xildhibaanada inta yimid saaris amarada wasaaradda waxaa yidhi waa inay tixgelisaa ma jirto waa inay fulisaa waay in lagu bedelo ereygaas tixgelisaada fulisaa in lagu bedelo waayo hagidda siyaasadeed ee wasaaradda beeraha ayaa ayadaa iska leh isla faqradda 4aad wasaaradda waa inay hay-adda saaris u madax banaysaa howlaha iyo shaqooyinkeeda gaarka ah balse dhinaca hagidda siyaasadda iyo qaabka korjoogtaynta habsami socodka howlaha guud ee qaranka kama madax banaanaan karto hay-adda waayo hagidda siyaasadda iyo madax banaanida waxaa iska leh wasaaradda iska leh wada shaqaynta caadi waa shaqadeeda gaarka ee khaas waay laakiin hagidda iyo maamulka iyo siyaasadda waa inay fulisaa waay inay tixgelisaa maaha qodobka 23aad ujuurooyinka iyo canshuuraha hay-addu inay dhaqaalo abuurato muhiim waay aaday muhiim u tahay balse ujuuriya canshuuraad dhaqaale ahaan haddii waa inay ku sargo'naadaan maamulka canshuuraha iyo maaliyadda ee heer qaran sida lagu caddeeyey ajuurooyinkeeda iyo canshuuraadkeeda inay iyada khaas u leedahay camal ay u qoran tahay laakiin waa in habka maamul ee canshuuraadka qaranka iyo maaliyadda inay ku sargo'naadaan ayaan soo jeedinayaa ta kale daawada cudurrada firileyda ee habkanka iska noqotay in laga digtoonaado iyo kiimikada bacriminta arrimahaas waxaan rabaa in aad iyo aad macnaha xooga loo saaro hay-addana muhiim waaye arrimahaas iyo ka hortegiddooda ay muhiim u tahay aad iyo aad aa u mahadsantihiin intaasaan ku darsan lahay